السلام عليكم أخيار شرفت لك كسو دوادا بري أكاديمي أصحابي هل كان عاوة حنو كبلابينا كورسو دمايستران بلو إلا دماد beginner إلا يا advanced oo ku saabsan forex trading ama suuqa sarifka lacagaha ee forex trading waa bilaabeynaa intayna bilaabin ka hor waxaan kuu sheegayaa Bari Academy waa farac ka mid ah qaybaha kale ee Bara Media mataqaanaa iyo mataqaanaa iskoolka kale ee mataqaanaa Bare marka qaybtaani waxaynu ku soo qaadan doonaa koorso dhammaystiran beginner ilaa advanced oo forex trading ah Bara Media marka waxaynu ku soo qaadanay koorso dhammaystiran oo beginner ah waxay ku kala duwan yihiin taas casharadeedu way dhaadheeraayeen casharo dhaadheer oo waqti dheer soconayay ahayd oo mataqaanaa dadka qaybtiis ay ka cabanayaan casharada oo dhaadheer dartiis saa daraadeed waxay rabnaa inay casharada yaryarayno oo mataqaanaa shortcut ka dhigno muhiimadana ka soo qaadano cashar kasta aynu muhiimada ka soo qaadano aynu ku darno ilaa advanced koorsadan marka si inta koorsadan socoto 30 beri ayay soconaysaa haddii aad u baahato koorsadan qaybaheeda kale waxaad aadi kartaa Bara Media sidaan ayaad waxaad ugu qoraysaa YouTube-ka Bara Media kadib halkaas ayaad ku arkaysaa koorsooyin kala duwan ee ka baxa Bara Media waynu bilaabeynaa la socod wanaagsan su-aasha ugu horeysa ee qofku markuu forex soo galo isweydiinaya what is a forex trading waa maxay forex trading su-aashaas ayaad isweydiinaysaa waa suuqa sarifka lacagaha ee waxa la yiraahdo adduunka ama isku bedelka lacagaha wadamada tusaale ahaan USD CAD USD iyo waxa isku bedelaysaa lacagta Mareykanka iyo lacagta Canada USD iyo CAD ayaa isku bedelaysaa ama euro iyo USD ayaa isku bedelaysaa USD JPY AUD iyo USD iyo CNY lacagahaas oo aad isku bedeshid ayaa dhexdooda waxaad ka raadinaysaa isjiidjiidanayaan faa'iido ayaad ka raadinaysaa haddii midkood buy aadana buy ayaad u raacaysaa haddii labada dhexdooda uu sell aadana sell ayaad u raacaysaa sidee ayaa la isugu bedelaa lacagahaas sidee ayaan si uga shaqeysan karaa suuqan dhammaan su'aalahaas oo dhan waa su'aalaha aynu ku baran doono koorsadan jawaabahoodii waxaynu ku baran doonaa koorsadan maxaan u baahanahay si aan uga shaqeysto forex trading waxaad u baahan tahay computer iyo mobile kaliya waad kaga shaqeysan kartaa balse kugulama talinayo inaad mobile ku barato maadaama computerku uu ku siinayo shaashad weyn oo screen weyn aad ka helaysid oo si fiican wax uga aragtid iyo tools badan uusan mobile ku siinayn saa darteed marka hore ku baro computer kadibna isticmaal mobile haddii aad doonaysid koorsigan wuxuu soconayaa 30 beri wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qayb kasta waa 8 cashar ama ka badan waxa la yiraahdo qaybta koowaad waa toolska ayaynu ku baran doonaa qaybtan waxay kaa saacidaysaa inaad baratid qalabka suuqa loo isticmaalo si aad ugu shaqeysatid suuqan qaybta xigta qaybta labaad waa istiraatiijiyadii qaybtan waxay kaa saacidaysaa inaad baratid xeeladaha suuqa looga shaqeysto oo istiraatiijiyado kala duwan ayaad baran doontaa oo aad suuqan uga shaqeysatid sidaad u jeedo qayb kasta waxay ka kooban tahay 8 cashar labadan qaybood oo hore qaybta saddexaad waa analysis oo yacni qaybtan waxay kaa saacidaysaa inaad baratid taxliilinta suuqa jihadiisa ama falanqeynta ama odoroska suuqa yani waxay kaa saacidaysaa maalin kasta markaad labada qaybood hore soo baratid waxaad halkan maalin kasta aad samayn doontaa analysis ama falanqeyn aad suuqa ku sameynaysid taxliilin odoros aad ku ogaanaysid labadan lacagood jihadooda xagee ayay aadi doonaan buy miyay aadaysaa sell miyay aadaysaa dabadeedna jihadii ee aad u malaysid inay aadayso ayaad u geli doontaa haddii Allah awood leeyahay marka tan 8 cashar kama koobnaan doonto way wadi doonaa oo maalin kasta haddii Allah awood leeyahay waxay soo gelin doonaa lacagaha fursadaha leh
waxaa jira Telegram ay dhalinyartu mataqaanaa ay ku wadaagaan fikirkooda, ku sheekaystaan, iyo group kale oo signalska aan ku bixino. fadlan haddii aad xiiseynaysid kusoo biir waxaa la yiraahdo iyagana nasoo weydii waana kuu sheegaynaa haddii Allah uu dileedmo. asxaabi casharkeena caawa intaas ku saabsan yahay. qaybta xigtaa waxaynu ku baran doonaa sidii aad barxaddii aad ku shaqaysan lahayd aad u heshid, ama platformkii aad ku shaqaysan lahayd ayaynu kusoo qaadan doonaa qaybta xigta. tan iyo intayn ku kulmayno casharkan cashar la mid ah waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.